بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaan daawadayaasha waxaan marka koobaad Ilaahay u mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala inuuna gaarsiiyey bishii Ramadaan ee cibaadaadka iyo khayrka badnayd, ajirka iyo thawaabka badnayd. isaga ayaana weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuuna waafajiyo camalkeeda iyo dadaalkeeda iyo wixii Ilaahay dambi dhaafkiisa lagu mudan lahaa. waxaa kaloo weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu naga aqbala camalkeeda si khayr iyo nabadana dhammaadkeeda nagu gaarsiiyo, guud ahaan gaar ahaanna leylatul qadriga ilaahay inuu na gaarsiiyo na waafajiyo. intaas kadib, shahru ramadaan shahru taacaat wey, waa bil mudan in loo gacan bannaanaado cibaadaysiga iyo khayrka samayntiisa. cibaadaadka waxaa ka mid a soomka maalinteeda oo ka mid a tiirasha waaweyn ee islaamka iyo acmaasha ugu fadli badan ee la sameeyo. saa darteed inuu taaca fadli badan oo ajir badan oo darajo weyn leeyahayna nusuusta sharcigu aad bay u sheegtay. mar waxaa la yidhi dembigaa la ysugu dhaafaa. dembi la dhaafay janno la galay way ogow. man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi. wixii horeo dhan dembigii baa lagaga dhaafaya. in dembigaaga la dhaafo inaad u soonto iimaanan waxtisaaban baad u baahan tahay, rumaynaad ilaahay rumaysan tahay iyo ajiraad isaga kaga doonayso doon dan kale ka lahayn. saas darteed sawmku dembi dhaaf buu leeyahay, ajirkiisana allah keliya ayaa og subxaanahu wa tacaala. xadiidulqudsigii waa kii ahaa kullu camali bni aadama lahu ila asawm fa inahu lii wa ana ajzii bih. anaa iska leh, anaana ka abaalmarinaya. taasoo lagu fasiray inuu soomay qofka in loo qoro oy malaa'igtu inuu soomay diiwaan geliyaan maahane ajirka qadarka la siinayo allah keliya og subxaanahu wa tacaala. cibaadaadkii kale oo dhan soonka sibaa looga fadilay oo rabbi looga xijisiiyey subxaanahu wa tacaala. haddaba camalkaagan ajirkiisaba ogeyn, malagna uusan ogeyn, kii haraaqda qorayana uusan ogeyn, alla keliyana og yahay, waxaa lagu tusayaa taacada soomku ka taaco ahaan iyo cibaado ahaan qiimaha ilaahay agtiisa ay ka leedahay subxaanahu wa tacaala. waxaa la gaarsiiyey xilliga gaar ahaan gelinka dambe la joogo ee qofka uusan waxba cunin, calooshiisana qaaca ay bixinayso, qof kastoo ag joogana qaaca uu dhibsanayo, in la yidhahdo wala khaluufu fami saa'imi atyabu cinda allahi min riixi lmiski. waxaa ka soo baxaya iyo qaacaa ka soo gufaacaya ay dadka aadamuhu dhibsanayaan, alla agtiisa carafta la yidhahda miskiga waa ka carfoon yahay, waa ka udgoon yahay, aad baa ilaahay agtiisa looga jecel yahay. saas darteed sawmku marka laga soo taga waajibnimadiisa waa taaco ka mida taacaadka ugu waaweyn ama calal itlaaq guud ahaan bisha ramadaan cibaadada la sameeyo ee ugu weyn waa soomka maalinteeda la soomo wey. tiirasha islaamkana ka mida qiimahaas iyo darajadaas iyo qadarintaana ilaahay agtiisa ka subxana wa tacaala. saas darteed cibaadadaas say booskeedii u gasho waxaad u baahan tahay laba arrimood. waxa wax u dhimaya inaad ka ilaaliso, waxa dhammaystirayana aad ku dadaasho. waxa wax u dhimaya waa wixii jebinayay ama makruuhaadka iyo dunuubta ajirka dhaawacadaha. waxa kordhinayana waxaa weeye siduu ku ansixi lahaana inaad barato sunankii iyo khayraadkii iyo cibaada taacaadkii kale ee kabayay ee kor u qaadayay ajirkiisa badinaya aad ku dadaasho. oo wax kasta oo saxar, waxa qiimaha badan qashinkaa laga ilaaliyaa, wasakdaa laga tirtiraa,
saxar inuu ku dhacaa laga ilaaliyaa meel asturan oo nadiif ah la geliyaa soom saa loo ilaaliyey oo nadaafadiisa iyo saafinimadiisa iyo la ilaaliyey oo saxarka laga ilaaliyey baa la doonayaa inaan ku dadaalno oon ka dhigno soomkeena cibaadada ah midda ugu weyn ee bisha aan samaynayno maalintiina aan samaynayno laba soomku wuxuu leeyahay qiyaam shahru taacaad inay tahay maalintii waxaa ugu weyn soomka habeenkiina waxaa ugu weyn qiyaamka iyo salaad la tukado salaaddaa la tukaday ee loo taagan yahay waxay ugu ajir badan tahay habeen markay tahay taagnidu inay dheer tahay qofkii awooda taagnidaa dheerna waxay ka dhigan tahay dee qur-aan baa lagu akhriyaya qur-aan badan nabiga markii salaadda la weydiiyey taa ugu fadli badan sunnada wuxuu yidhi afdalu الsalaati tuulu lqunuuti midda taagnida dheer qofkii taagnidaa dheer qur-aan badan buu aqriyi doonaa qur-aankuna habeen iyo maalinba waa la iska rabaa laakiin habeenkii baa lagu soo jeedayaa waxaad noqonaysaa tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa طamacan saa darteed shahru lqiyaam wey man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih dembiga hore dhan baa la dhaafaya waxaa la doonayaa marka inaad soo jeedka badiso salaada badiso qiyaamkeeda aad badiso habeenna waaba ku jiraaba khayru min alfi shahrin layidhi waa habeenkeeda oo ku dhammaada iyo xataa maطlaci اlfajr waa inta habeennimada maqhribkii ilaa salaada subax inta udhexaysa way khayru min alfi shahrin kun bilood bay ka khayr badan tahay 83 sano iyo dhowr bilood waay waa lamid lama dhihina way ka fiican tahay baa layidhi saa darteed qiyaamka ramadaanka in la istaago oo la dadaalo oo salaatuleyl la tukado salaatuleylkaana waa taacaadka waaweyn ka mid a salaatuleylkaana waxay u fadli badan tahay markay guriga tahay ramadaan bay ahayd masaajidka nabigaana la joogay sal ly slam nabigaana dadka tukanayay dadkii markay soo bateen nabigu wuxuu ku yidhi war dad yahow guryihiina ku tukada fa ina afdala salaati almar'i fii beytihi ila almaktuuba ta waajibkaa maahane salaad waxaa ugu fadli badan gurigaaga aad ku tukato saa darteed gurigaagii ood joogto oo markaa laba ragcadood joogto iska nasan karto oo biyo iska cabi karto oo haddaad haysata shaah bigaysa aad qac ka siin karto oo haddaad weyse u baahato iyo cajis musqushaada aad geli karto oon cidna kugu qayliyeynin adoon ducadii dhammaysanin aan sujuudda lagaa hortoosaynin aan rukuucda lagaa hortoosaynin adoo qur-aanka meeshaad rabtay aan gaadhin aan laga hor rukuucaynin laba qiraa'a dheer inaad geliso haddii taagnida ku dhibayso nabigu 10 buu inooga tegay gurigiisoo ku tukan jiray salaadana waa dheerayn jiray markii uu waayeelay ee cuslaaday ee taagnidii dheereed kari waayey fadhigu buu ku akhrin jiray markay waxoogay rukuucda uga laaban tahay ayuu istaagi jiro akhriska intuu dhammaystiruu rukuuci jiray kursigaaga dhigo waa salaad sunne fadhigaa la ogol yahay dhag allahu akbar markaad dhahdo waxoogay akhrido kursigaaga isaga fadhiiso haddaadan haysa xifdisanayn kitaabkaaga ka akhri ugu jid ragcaddiiba xisib ku akhri markaad dhammayso eed aakhirka joogto intaad istaagtood inta u dambaysa aayadaha u dambeeya hadba intaad awooddo ku akhrida taagnida rukuuc saasuu nabigu yeeri sal slam oo iyadana ajirkii labaad oo ahaa dhinaca kale afdalu salaati tuulu lqunuuti akhri waqtiga qaybta dambe habeenka ugu fiican oo nabigu alayh slam xadidka musa ashcari markii la yidhi salaada teebaa ugu fadli badan habeenkii jawfu leyli aakhir buu yidhi habeenkii dhexdiisoo qaybta dambe ah wa bilasxaari hum yastakfiruun suxuurta ilahay dambi dhaaf weydiistaan baad noqonaysaa tatajaafa inta hore iska yarseexo tatajaafaa junuubuhum cani ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan cumar radi allahu canhu ardaa markuu salaada habeenka qaybtiisa hore taraawiixda dadkii ururiye jamciyey isagu lama tukan jir ninkii karaanigiisa ahaa baa wuxuu ka sheegay cumar inuu soo maray iyadoo salaada si fiican jamaacada loo tukanayo taraawiixdii wuxuu yidhi arrintanaa ka wax dadka loo bilaabo tanaa ugu fiican
waalatii yanaamuuna canha khayru min alatii yaquumuunaha qaybta dambe habeenkay ka seexanayaan baana ka khayr badan qaybtan hore habeenkii ay tukanayaan. hadday saa u tukanayaan qaybta dambe ay ka dhigtaan baa kasii fiicnaan lahayd. marka adigoo guriga jooga salaadiina dheereeye qaybta ugu dambaysa habeenkii qaybta dambe habeenkiina ka dhigtay ilaahay thuluthu leyli alaakhir 3 meelood meesha dambe ila samaa'i dunyaa buu iman wariyaa waxay weydiisanayaan siiya wariyaa dambi dhaaf rabo dambi dhaafa wariyaa naxariisan u naxariista bad ku soo aadi qiyaamul leylki man qaama ramadaana iimaana wa ihtisaaban naba ku taala taacada qiyaamku waa taacadu qiimo badan way quraanka lagu akhriyay habeenkii ee hurdada uga soo kacdayna isaga iyo soomkii maalintii aad soomanayd qiyaamada way ku doodayaan way ku ergoonayaan ilaahay bay codsi u geysanayaan soomku wuxuu ilaahayow manactuhu at-ta'ama wash-sharaba fashafi'ni fihi ilaa cunniya cabitaan baan u diiday oon iyo gaajaan baday ani dartay u sii daa wixii kala galay buu cafi quraankiina uu istaagay wuxuu rabbi manactuhu an-nawma ana hurdo u diidayo iga soo kacay fashafi'ni fihi aniga ergadeedii i aqbal quraan iyo soom qof ay u ergeenayaan baad noqon quraankana sida shafaacadan ku cad waa quraanka habeenkii la akhriye manactuhu an-nawma waay taacada saddexaad waa quraanka oo isagana keligiya oo maalintii la akhriyo nusuustu si cadna waa u tilmaantay si dadbanna waa u tilmaantay sida dadban waa quraanka sida cadna waa sunnada ama quraanku waxa la shahru ramadaan alladhi unzila fihi al-qur'aan bisha ramadaan baa quraanka la soo dejiyay in bisha ramadaan iyo quraanku munaasabad ka dhaxayso oo lagu beegay bishan oo bishu shahrul qur'aan ay tahay baa lagu tilmaamo dhiiri gelinahayd inaad akhrido sunnada nabiga alayhi salaam waxay sugtay in nabiga uu jibriil u iman jiray habeen kasta oo ramadaana fayudaarisuhu alqur'aan quraanku la akhrin jiray jibriil baa imanaya nabi maxamed alayhi salaam jibriil baa bisha ramadaan habeen kasta quraan wada akhrinaya bisha shahrul qur'aan inay tahay quraanka adii loo akhriyo loo baahan yahay intaas waa ka garatay iyadana saas darteed bishii quraanka in la badiyo dhammayntiisii iyo khatmadiisii waqti fiican geliyo 3 bari ba dhamee haddaadan dhammayn karin 7 ba dhamee haddaadan dhammayn karin 10 bari mar dhameeyo 3 jeer khatim quraanka saas darteed waxa laga doonayaa anna la iga doonayaa dhammaanteena la iga wada rabaa taacada qiraa'ada quraanka oo ilaahay loogu dhawaado iyadoo ajirkeedii hore lahayd bayta ramadaanku ka sii xaq jirtaa oo ku shafaacaya oo aad noqonaysaa shahrul qur'aan oo labadii sayyidur rusul iyo sayyidul bashar aad ku dayanaysaa taacadka waxaa ka mid ah taacatul infaaq wa sadaqaat bishan waa bishii sadaqada bishan waa bishii infaaq mar nabigeena waxaa lagu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam kaana ajwada annaasi dadka ugu deeqsisanaa wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaana markuu ugu deeqsisan yahayna bisha ramadaan bay noqon jirtay hina yalqaahu jibriil markuu jibriil la kulmayo bisha ramadaan buu nabigu ugu deeqsisanaa sanadka isaga markii la yiraahdo dadka isaga ugu deeqsisanaa bisha ramadaan buuna ugu deeq badnaa sadarteed sadaqaadka ramadaanku waa ka fiican yihiin sadaqaadka kale waxaa la jideeyey man fatara saa'iman falahu mithlu ajri qofkii qof sooman afuriya ajirkiisoo kale u leeyahay adigu hal qof baad tahay hal maalin baad soomi kartaa laakiin hadba inta aad tiro dad afurisoo maalmood baad ajirkeeda leedahay saas darteed bisha ramadaan waxaan ahayn makhaayadahay dad badan lacaga kaga bixi jireen laga qureecdo laga qadeeyo barqadii shaah la cabo casarkii shaah la cabo wixii intaa ku bixi jiray masaakiin badan bay ku filan tahay dad badan oo masaakiin iyo masaakiin ahayn baad ku afurin kartaa timir iyo biyo aad siin kartaa qoysas masaakiina baad siin kartaa nin baa laga yaabaa magaalada Nairobi oo joogno oo kaleeto maalinkii hal xabo oo kabajiino oo cabbi jiray oo 150 markii 30 maalmood lagu dhufto 150 imisay noqotaa 10kii bari waa 1500 lagu dhuftay 4500 qoys dhan oo 6 qof ka kooban bay 5,000 ku filan tahay bishaasoo dhan afurkoodii cashadoodii iyo suxuurtoodii agood maxay kugu fileed bisha dhan hal maalintii hal xabo oo kabajiina
bay dad qaarkood ugu filayd kii laba cabbi jirayna 9,000 iska dheh kii subaxina cabbi jiray casarkiina cabbi jiray maalintii 300 ahayd 9,000 dheh laba qoys bay ku filanta waray kun shilin intaad ku darto 12 qof soonkoodii iyo cashadoodii iyo afurkoodii iyo suxuurtoodiiba maxaa ka fadli badan haddayba masaakiin si yihiinna aw miskiinan daa matrabatin dhulka yaalla jannadaaba dalaq lagu dhahaa haddayba agoon yihiinna yatiiman daa maqrabatin jannadaa dalaq lagu dhahaa haddaynan ahaynoo iska masaakiin kale uun yihiinna sadaqada aad la baxday ramadaanka intaa 12 qof waxaad ku dhufataa 30 beri 10kii beri oo 120 waxaan filayaa waa 360 maalmood intay ka afureen keliya oo maalmood soonkood ba ajir lagaa qorayaa infaaqu ajirka uu leeyahay bisha ramadaan ma aragtay iyo siday u fududahay ee laga yaabo adiguna inaad u dhibsato saas darteed bishu shahru taacaat way haddaad soonto ood salaadii iyo qiyaamkii ku dadaasho waad ku dadaashato qur-aankii akhriskiisii ood infaaqii iyo sadaqadii bixinteedii ku dadaasho waxaa kuu soo haray muxuu yahay waa taacaadkii iyo cibaadadii kale iyo dikrigii inaad u gacan bannaanataa lagaa doonaya wakhtiga ugu badan eed firaaqada u heli karto firaaqada ama xafiis ku hel ama meel shaqo ku hel ninbaa waardiya wuxuu qabqabanaya ma jiro halkaasuu fadhiyaa kursi buu ku fadhiyaa beddelkuu telefoon ku mashquulsan yahay hadduuba qur-aan ku mashquulo ninkii xifdisanna iska badaa oo meelaha ugu fiican ee xafiisyada shaqada yar qur-aan lagu xifdin karo kutub lagu raacan karo dikri lagu aqrin karo aakhirka bishana taacaadkii oo dhan saad u jumlayso ood sagooti fiican u samayso yaa lagu yidhi waxaa wanaagsan inaad ictikaafto xaafadda ka tag shaqada ka tag suuqa ka tag masaajka dhex fadhiiso isaga seexo isaga ku soo toos isaga dhex joog isaga wax ku dhex cun musqul iyo weyse uga soo bax ku noqo mar naso mar quraan akhri mar tasbiixso mar ducayso ilaa akhirkiisa taacada ugu dambaysa aan kelmadeenna ku soo qaadanayno ee shahru taaca inay tahay shahru ducaayi waayo bishaa la bariga waayo ilaahay la bari jiray maalinteedana intaan ducadooda la radiin oo la ajiibo waxaa ka mid ah wadacwatu saa'imi qofka sooman ducadiisa alla barigiisa ama naftiisa ha u duceeyo ama reerkiisa ha u duceeyo ilmihiisa ama waalidkii iyo raximkii iyo intii xuquuq ku lahayd gaar ha u duceeyo ama ummadda muslimiinta ah ha u duceeyo ducadu waa la aqbalaa bishaasoon duca laga aqbalay waxay ka dhigan tahay 3 midkood sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam imaa wixii laga aqbalay si lagaaga aqbalay in laguu siiyo oo wax muuqdoo la taaban karood hadda sugaysa hadduu yahay inaad hesho haddii kalena diiwaanka laguu geliyo oo dembi lagaa dhaafay dembiga in lagaa dhaafay aduu bidhaan arki maysid oo diiwaan lagu tusi maayo in wixiis markaaba lagu siiyo 2 in bala ka weyn oo soo socotay ducadii ay ka hortagtoo lagaaga xijaabo in laguu kaydiyo maalin la qaawan yahay oo qiyaamo la taagan yahood uga baahi badan tahay in lagu geliyo ducada marka saa darteed aadaabteedii inaad barata way iyadana sidii lagu aqbali lahaa iyo saacadaha gaarka loo sii aqbalo iyadoo la aqbalo dacwatu saa'im ba haddana saacada gaar loo sii aqbalo u leeh thuluth leyl akhir baa ka mida waqtigii sujuuddaa ka mida iyo munaasabaadkeeda marka la afurayaa ka mida ay naftu hungurigu saa u haysay haliilaysay cuntada u malabsanayso oo yaaba duca xasuusa dadka qaarkii ay ka taagantay ducada aadaabtii lagu aqbali lahaa inaad ilaalisana waa loo baahan yahay inaad ku dadaasho in ducadaa ilaahay kaa aqbalo oo ducadaa laga aqbalay aad ku badbaadana waa loo baahan yahay mar ducaysoo dambi dhaaf iyo aakhiradaada weydiiso mar adduunyadaadii weydiiso mar ilaahay nicam inuu ku siiyo weydiiso mar kuwuu ku siiyey inuu kuu xifdiyo oo kuu joogo aan weydiiso oo shukrigooda ku waafajiyo mar balaayo ilaahay inuu kaa celiyo oo kaa xijaabo weydiiso laakiin marnaba ha dhihin ducadaydii waan baryoo layma aqbalin oo nabigu wuxuu yidhi alayhi salaam wuxuu yidhi yustajaabu liaxadikum maa lam yacjal qofka inuusan degdegin waa laga aqbalayaa waxaa la yidhi see u degdegayaa wuxuu leeyahy nabigu alay yidhi
yaquulu dacawtu wa dacawtu falam yustajab lii waan baryay oo laygama aqbalin xadiidkaa nabigana waxaa ka sugan alai sl slam inuu yidhi rabbi uu ka warinaya inuu leeyahy rabbi addoonkaygoo ii baryaya oo ku celcelinaya oo dhulka isu kay dhigayaan arkayaa anoo markaaba wixii u samayn kara baan u dibdhigayaa waayo tadaruciisa iyo ducadiisa iyo baryadiisa iyo ilxaaxa ku celceliskiisa baan jeclahay inaan maqlo saa darteed ogow alla barigii ducadii ee lagu aqbalayaa inta kuu muuqata kaa yar daahday ilaahayoo baryadaada inuu maqlo jecelood ku celcelisa waay ilahayna wuxuu jecel yahay ducada kuwa ku celceliyuu jecel yahay almulixiin kuwa ku celceliya su-aasha ilaahay baryadiisa badiya ayuu jecel yahay saa darteed bishu shahru ducaayi way bishii alla bariga way bishii ilaahay waxa la weydiisanaya way aakhariya adduunba liibaantooda bishii rabbi ducadiiyo baryada lagaga gaarhaya way saa darteed daacaadka guud een badinayno si gaara ducadu waa daacada shanaad ee mudnaan gaara in la siiyo mudan ee u baahan way intaas iyo in lamid ah oo dikrigii iyo tasbiixdii iyo taxmiiddii tahliishii laa ilaaha ila allah ducadii kale waxii kale la akhrinayey dadkii wax la tarayey khayrkii dacwada la sheegayey dadkii diinta loogu yeerayey intaba in lagu dadaalo ayaa la doonayaa intaas ayaan ku soo ururinaynaa kelmaddeennii ku saabsanayd daacaadka in lagu dadaalo iyo inaan wax ka tilmaanno daacaadka kuwa ugu muhiimsan dabcan mid waliba faahfaahinteeda iyo adiladeeda iyo sida loo samaynayo iyo aadaabteeda inaad iyadana baratay u baahan tahayoo waxaa intay ku daraysaa un mid walba ku lamaan dalabu cilmihaa cilmigeeda inaad barato ood raadiso ood ogaato maanta ilaahay waa fududeeyey qoraal baad ku heli maqal baad ku heli muuqaal baad ku heli kolaba telefoonadiina meel walba waad wadataaye intaad wax kaloo xun dhegaysanaysa oo dhegaysanaysa dhagaha gashan lahayd cilmigan barashadiisaoo maqal iyo muuqaal baa dhagahana gasho indhahagana ka daawo ilahay cibaadada mar labaad ilaahayna waajifajiyey mana soo gaarsiiyey bishaa mahad leh intuu inaga waafajinay isagana uga mahad celin subxana wa tacaala inta kalena inuna waafajiyo kadibna naga aqbalo khayr iyo nabadna nagu wada gaarsiiyo noogu dhammeeyo ayaan isaga weydiisanaynaa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka wa atuubu ilayk